السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين إمام النووي رحمه الله وسوق بنية شرح الشيخ شريف عبد النور رحمه الله. hoos waxaad ka helaysaa linkiga kitaabka oo carabi ah asoo soomaali ah iyo asoo ingiriis ah, marka kala soc halkaas kana faa'iidayso. waa kitaab aan ku gabaabinayo qof kastoo muslima ah inuu kitaabkan uu barto ugu yaraan. السلام عليكم ورحمة الله. الأرواح جنود مجندة. الأرواح روحيالكو نفta dadka ku jirtaayo جنود مجندة waa jundiyaal la kooxeeyey oo intii isku nooc kala ah. famaa tacaarafa minhaa wixii is-aqoonsada oo isbarta oo isku noocihi italafa waa isu dulmaayaayo waa is-aanaysanayaan. wamaa tanaakara minha wixii is-inkira yani is-garan waayo oo isku nooc noqon waayaana ikhtalafa waa iskhilaafaa. intantadu marka iyadu waxaa weeyaan waa in ziyaado oo xadiid horana aanay nagu soo marin weeyaan. macnaheeduna waxaa weeyaan dadku inay kala nooc yihiin oo kala xagga akhlaaqiyaadka iyo marka dabcigooda iyo laga feeriyo ruuxdoodu ay kala tahay anwaac kala gagadisan. marka intii isku nooc oo ruuxdooda isku si alla u abuurayba ay isdayanayso o is-aanaysanayso. waa kay yidhaahaan carabtuna ay yidhaahaan calaa ashkaaliha taqacu tayr. shimbir markii ay meel shimbiro kale ay sii joogaan ay kusoo degayso noocba noociisu doonanaya ku dhex degaya. qooleydu qooleyaalka ku dhex degaysa, tukuhu tukaha, casfuurta casaafiirta, qudunquutad, mid weliba waxay doonanaysaa nooceeda ayay doonanaysaa. intii munaasaba ka dhaxaysaaba way is doonanaysaa. waxaa la sheegay waxaa jiri jirtay laba haweenaho midna maka ay joogto midna madiina ay joogto isku dabciyaho mid waliba ay tahay mid maad badan oo kaftan badan oo dadka ka qoqosliso oo marka tan makiyadiina markay madiina timaado tan ay ku degi jirtay, ta madaniyadiina markay maka tagto tan ayay ku degi jirtay. shaacirna wuxuu leeyahay wاlkhaaribu lisu yuxibu اlkhaariba. ninka tuuga ee geelqaadka ihi tuuga geelqaadku jecel yahay. ninka saalixee ninka saalixu jecel nin badan ninkiisu noociisuu jecel yahay. nin baa wuxuu leeyahay maalin baan waxaan arkay tuko iyo qooley wada jooga meel. markaasa ka yaabo labadaa shimbir isku noocba mehe maxaa isu geeyey. markaasa kolkay kusoo dhawaaday ay duuleen yaan arkay bule mid dood waliba inuu adinka dhutinayo. markaasaan munaasabadaasa kulmisay, jiisnimadaas ayay ku kulmeen. muttafaqun calayhi. ninkii la dhihi jiray shaacirka ahaa ee imruulqays la dhihi jirayna markuu dhimanaya meesha anqara la yidhaaho ee caasimada turkiya hadda ah buu ku dhintay. yuu kolkuu sakaraadayay isagoo la sumeeyey ayuu wuxuu ku ag dhimanayay haweeney carbeed oo meesha iyaduna ugu horreysay buur casiib la yidhaaho halkaa ku taalla. halkii buu shaacir intuu ka tiriyey ayuu shicirkiisii wuxuu ku soo khatimay ayaa jaarataa inaa muqimaani haahunaa wa kullu gariibin lilgariibi nasiibu. qofka qariibkii labada qofka qariibka ee beled aan midkoodna aan beledkiisi ahayn hadday joogaan iyagay sheekada isu qabataayo isagoo iyagoo wada sheekaysanayo oo dadka ahlubeledka ah ee kale qariibnimadaasay isku aanaysanayaan. marka saasay dadku kale yihiin iyo xayawaanaadkuba ay kale yihiinoo intii isku noociba way is-aanaysataa. dadka marka qaar baad waxaad arkaysaa marka ugu horraysa la kulantaba adiga iyaga sijaam uu idinka dhacayo oo aad maaragtay isqabanaysaan oo sheekadu isikin qabanaysaan isweheshanaysaanoo iyo qaar markaad aragtaba naftaadu ay ka soo didayso oo aad ka mareegeysanayso oo aadan nafta siin karaynin. waa kaad isku dabci tihiin iyo kii kale sidaa kale yihiin. rawahu muslim. وrawى الbخaariyu qowlahu alarwaaxu ilى akhirihi min riwaayati caaisha radi allahu canha. xadiidkan kada faqradaas ka mid ah ugu danbaysa ayuu imaamu الbukhaari radi allahu canhu uu wariyey, laakiin min riwaayati caaisha weeyaane mase ahaa min riwaayati abi hurayrata radi allahu canhuma. وعan usayr bni camri wayuqaalu bni jaabir. usayr bni jaabir iyo usayr bni camriba waa la yidhaahaay. wahuwa bidami اlhamzati wafatxi siin usayr almuhmala oo bashiir iyo maaha iyo asiid iyo waxyaalahaas ma aha yani. qaala kana cumar bn الخaطaabi radi allahu canhu
cumar ibn khadaab radi allahu canhu markuu amiiru lmu'miniin ahaa ee futuuxaadkii islaamiga ahaa ee waasicada ahaa ay socdeen wuxuu ahaan jiray idaa ataa calayhi markay u yimaadaan amdaadu ahli lyaman taakulooyinkii ahlulyaman yani juushtii laga soo dirayay gobollada laga soo dirayay ee lagu taakulaynayey muxuaha mujaahidiinta futuuxaadka ka wada ruum iyo faris iyo ciraaq iyo masr iyo dholalka ka wada ee madiina markay kusoo degaan isagoo amiiruulmu'miniina radia allahu canhu hadda isaga aha kii kala dabiraya ee qolo walbaba sahayaya ee diraye kolkay marka koox cusub oo yeman ka timid u timaado sa'alahu wuxuu waraysan jiray afiikum uways bna caamir uways bna caamir ma idinku jira maya waxaa la yidhaahba sanadkii marka uu yimid ayuu sidii caadadiisa ahayd raggii yeman ka yimid iyo la kulmo markaasu wuxuu yihi uways bna caamir ba idinku jira xataa ataa calaa uwaysin radia allahu canhu ilaa uways uu uga yimid oo haa waa nagu jira waa kan la yidhi faqaala lahu markaasuu cumar ku yidhi anta uways bnu caamir adigu ma uways bna caamir baa tahay uways bna caamirkaasna waa ninka uwaysulqarani loo yaqaano radia allahu canhu qisadiisii xadiidka keliyahe waxiidka ee saxiix ee ku soo arooray yaa halkan kada yani aan ka gelayna maadaa uways bna caamira markaasuu yidhi haa qaala min muraad qabiilada muraad la yidhaha miyaa ka dhalatay uma min qaran haddana qaran baad ka sii tahay qaala nacam qaala fakana bika barasun fabara'ta minhu ilaa mawdica dirham ma baras ma lahaan jirtay oo ma ka bogsatay intaad alla barido alla barigii alla u ka aqbalay ilaa dirham qadarkiis mooyaane qaala nacam haa buu yidhi qaala alaka waalida hooyadaa ma nooshahay qaala nacam intaasoo dhanba marka wuxuu uga dan lahaa hadduu sheegaya qaala markaasu cumar wuxuu yihi radia allahu canhu samictu rasuula اllahi sala allau alيyh wali wasalam rasuulka allaan maqlay yaquulu isaga oo leh yaatii calaykum uways bnu caamir waxaa idiin imaan doona uways bnu caamir baa idiin iman doona maca amdaadi ahlilyaman ahlulyaman taakulooyinkooda macoodu idinku imaan doonaa min muraad qabiilada muraad la yidhaha buu ka dhashay uma min qaran haddana qaran buu ka sii yahay kaana bihi barasun baras buu lahaan jiray fabara'a minhu waa ka bogsaday ilaa mawdica dirham qadarkiis meel ah mooyaane lahu waalidatun huwa bihaa bar hooyuu leeyahay oo nool oo hooyadiisuu baari u yahay oo wuxuu waqtigii nebiga sala allahu alيyh wali slam wuu noolaayo mu'min buu ahaaye wuxuu usoo hijroon waayeyba hooyadii baarinimadeedii marka nebiguna sala allahu alayh wali wasalam taasaa alla ku ogeysiiyey oo waa ka ku ammaanaya waa kan hadda ka horna soo maray ninkii jihaadkii iyo hijrada u yimid ee aabbihii iyo hooyadii ka yimid inuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ku noqdo aabbihii iyo hooyadii ku noqdo iyagoo uu ku jihaado marka ninkii usoo hijroon waayey hooyadii baarinimadeeda iyo dhaqaalinteeda waxba arrintaasu ma ayna yeelin oo waxba nuqsaama ma ayna u geysanin low aqsama cala allahi la abara haddii uu alla ku dhaarto wallahina si ay saa noqonaysaa uu yidhaaho alla waa uga dhabaynayaayo sidii buu u yeelayaayo waa nin qalbi wanaagsan oo alla jecel yahayo weli allaho saalixa fain istatacta an yastakfira laka fafcal haddaad cumarow karayso inuu kuu duceeyo alla dembi dhaaf kuu weydiiyo yeel yani haddaad la kulanto ka dalbo oo alla ii baryo muxuu ahay dembi dhaaf alla ii weydii ku dheh saasaan maqlay faاstakfir lahu fastakfir lii dembi dhaaf alla ii weydii faاstakfara lahu alluu dembi dhaaf u weydiiyey uways غafar allahu laka ya amiira اlmu'miniin buu ku yidhi ama allahuma اغfir liamiiri اlmu'miniin aw allahuma اغfir licumar bni khadaab waxay noqotaba cumarna radia allahu canhu uways isagaa ka fadli badan maca dalika rasuulku salى اllahu alayh wali wasalam wuxuu cumar farayaa inuu ka ducaysto uways markaas sidaas macnaheedu waxaa weeyaan qofka faadilka iyo qofka mafduulka ah inuu ka ducaysto waa u heli karaayo maxaa ducadiisa uga baahan yahay isagaaba ka fadli badan isagoo ka khayraad badan isagoo ka cilmi badan isagoo ka cibaado badan waxaas lama dhahayo tanuna marka waxaa weeyaan waxay ka mid tahay noocankadu waa nooc tawasulka mashruuca ka mida qof saalixa oo nool ood la kulantay oo laga ducaysto ama aada u fariindirato oo tidhaaho hebelo iisoo duceey adiguna aamiin aad dhahdo waa anwaac tawasulka saddexda iyagoo aan khilaaf iyo shakitoona ku jirin ayuu ka mid yahay
alla oo sifaadkiisa lagu baryo, alla oo qofku uu ku baryo camalkiisa saalixa ee uu sameeyey sidii nimankii saddexda ahaa ee godku ku awrimay, iyo qofka saalixa ah xayiga ducadiisa oo alla lagu baryo oo laga dalbado inuu alla kuu baryo. faqaala lahu cumar baa wuxuu yidhi ayna turiidu, xaggeed rabtaa inaan kuu diro? qaala markaasu wuxuu yidhi alkuufa, kuufaan rabaa. qaala alaa aktubu laka ilaa caamilihaa, miyaanan kuugu qorayn aan kugula dardaarmayo inuu ku dhaqaaleeyo xaakimkeeda? qaala akunu fii qabraa'i innaasi axabu ilaya, dadka fuqaradooda inaan ku dhex jiro, dadweynaha aan iskaga dhex jiraa ayaan jeclay. waxba tawsiya gaariya ayay qorin. nin iska zaahida buu ahaa, inuu iska qarsoonaado jecelo, rabbigiisa si qarsoodi isaga caabudo, madaxda iyo waxyaalaha inuu ku dhodhowaado ma jecleen. falamaa kaana min alcaami almuqbil, sanadkii soo socday markuu yimid, xaja waxaa soo xajiyey rajulu min ashraafihim, nin ahlu kuufa madaxdoodii ka mida baa soo xajiyey. fawaafaa cumara radi allahu canhu, cumar buu la kulmay. cumarna radi allahu canhu nin aad u dadaal badan oo aad iyo aad u feejugan oo wuxuu ahaa aad iyo aadna u karti badan oo ugu jajaban dadka muslimiinta ah masaalixdooda oo u ilaalin jiray, oo dad walbaba meeshooda siday yihiin inuu intuu ku ogaado xaqooda halkaa ku gaadhsiiyuu jeclaayo dadka soo xajiyey iyobuu la kulmi jiray oo beledkooda ka waraysan jirayoo sidaasuu yeeli jiray. fasa'alahu can uweys buu ka waraystay, ninkii kufa ka soo xajiyey ee madaxda ahaa yuu uweys ka waraystay. ninkaasuna nin uweys qiimihiisa yaqaana ma aanu ahayn kolkaas. faqaala markaasu wuxuu yidhi taraktuhu ratha alhay-ati ratha albeyti qaliila almataac, waxaan ka imid isagoo guri xun lahoo alaab yar leh, waa liiday marka isagoo ninkan kaba. nin wuxuu iska ahaa raaxadii adduunyadii iyo waxyaalahaas iyo madaxtinimadii iyo iska dadka ku qiimeeyo ninkaasu iska ahaayo, wuxuu marka wuxuu uga warramay uweys ay ku jirto yasid iyo liidid ay ku jirto. ninkaas wuuba la yaabay oo wuxuu is yidhi amiirulmu'miniin muxuu kaa ka waraysanaya, muxuu xaakimkii iyo dadkii madaxda ahaa iyo raggii waaweynaa maan uga waraysanine midkaas miskiinka ee quulka xun ku jira. qaala markaasuu cumarna wuxuu yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama yaquul, rasuulka allaan maqlay isaga oo leh yaatii calaykum uways bna caamir, uways bna caamir baa idiin imaan doona maca andaadi ahli lyaman min muraad buu ka dhashay, uma min qaran kaana bihi barasun fabara'a minhu ilaa mawdica dirham, lahu waalidatun huwa biha bar, la aqsam cala allahi la abarah, fain istatacta an yastakfira laka faafcal. rasuulkaas sidaa yidhi. ninkii markaasuu baraarugay, marka uweys qiimihiisa uu gartay. daris buuna la ahay, waa ku ciyaari jiray, waa ku dheeldheeli jiray markii hore. faataa uweysan, ninkii korkuu noqday uweys buu u tegay, intuuna gurigiisiiba aadin iyo uweys toosu aaday. faqaala markaasuu yihi istakfir lii, dembi dhaaf alle ii weydii, inuu alla ii dembi dhaafo. waa gartay. qaala markaasuu wuxuu yidhi anta axdatu cahdan bisafarin saalixin faاstakfir lii, adaa ku dembeeyey safar wanaagsan oo hadda ka yimid, xajkii ka yimide adigu ii ducee, adaan kaa ducaysanaya. waa ku celiyey marka haddana oo ninkii waa ka hadhi waayo. qaala markaasuu yihi laqiita cumar, ma cumar baad la kulantay? wuxuu gartay ninkan wuxuu sidaa u yeelaya awalbaba ilaan maanu ka ducaysan jirine inuu cumar la kulmay oo cumar uu ka maqlay xadiidkii isaga ahaa oo sidaa daraaddeed uu uga ducaysanayo. qaala markaasuu yihi nacam haa. faاstakfara lahu, alluu dembi dhaaf u weydiiyey. fafatina lahu nnaasu, dadkii baa ku baraarugay oo waxaa xadiidkii baa laisdhex mariyey sheekadiioo ninka uweys la yidhaaho waa nin wanaagsan oo nebiga kasii warramayo, waa mujaabu dacwo weeyaan. markaas dadkii baa kusoo jabay oo nin walba ii duceey, uweys ugu duceey, alla ii bari la dhahaya. faاnطalaqa calىa wajhihi, wuu iska dhaqaaqay, hortiisuu iska dhaqaaqay oo dadkii buu ka dhex baxay oo wuu iska qariyey. rawaahu muslim, xadiidkan kada muslim baa wariyey. xadiidkaas ayaa ninka uweys alqarani la yidhaaho qisadiisa intaasun baa laga yaqaana, wax kale oo sugan oo laga yaqaana ma uu jiro. inkastoo riwaayooyin farabadbadaan oo kale ay iska jiraan oo abu nucaym alasbahani fi kitaabi xilyat اlawliyaa
qaar uu ku warinayo alimaamu axmed fi kitaabi الzuhd wاlxaakim الnaysaburi fi lmustadrak sheekooyin sidaasa iska jiraan haddana xadiidkan kada صaxiixa anba ninka uways alqarani la yidhaaho laga yaqaana xataa meeluu ku aasan yahay iyo waqti uu dhintay iyo lama yaqaano nin isagoo marka isqarinayo oo nin iska faqiirahoo meel qariib yaho inu lagu aqoonin intuu iska tegay iskaga cibaadaysanaya meelaha inuu iskaga dhintay ciraaqda ku dhintay unbaa marka loo malaynayaa inkastoo riwaayadana ay sheegaan inuu dagaalkii sifiin ku dhintay. soomaalida caamadeeduna marka waxaabay caqiideeyaan inuu soomaaliya ku aasan yahay oo meela ay kala ziyaartaan baaba jiraan u malaynaya. wa fii riwaayati limuslimin ayضا can usayr bni jaabiri radي allahu canhu ana ahla اlkuufa wafaduu calىa cumara radي allahu canhu ahlkuufa wafdi usoo diray cumar radي allahu canhu markuu amiiru اlmu'miniin ahaa wa fiihim waxaana ku jiray rajulu miman kaana yaskharu biuways nin oo intii uways ku jees jirtay ku dheeldheeli jirtay ah oo faqiirnimadiisa iyo taqashufkiisa iyo waxyaalahaas sababtiisa ugu ciyaari jirtay oo qiimihiisa aan garanaynin ah yaa wafdigaana ku jiray. faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi hal haahunaa axadu min alqaraniyiin ma joogaa halkan kada ma ila joogaa qof oo qabiiladaa qaran ah ka dhashay. fajaءa dalika arajulu ninka isaga ee uways isku qowlaan ay ahayd dadkuna xaafadaha qabiila loo kala degdegi jiray xaafadaha qabiila lagu degi jiray nin qof kamida qabiiladii ninkaas oo daris ay ahaayeen oo marka ku ciyaari jiray ninkii baa yimid. faqaala cumaru markaasu cumar wuxuu yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali waslama qad qaal ina rajula yaأtiikum min alyaman nin baa yaman idinka imaan doona yuqaalu lahu uways la yidhaaho laa yadacu bilyaman gayra ummin lahu aan wax dadahoo kale yaman kaga imaanayn ilaa hooyadii mooyaane qad kaana bihi bayaadun cadaan buu lahaan jiray yani baras buu lahaan jiray fadaca allaha tacaala alluu baryey faadhaba allahu alla waa ka suuliyey ilaa mawdica dinaari aw dirham faman laqiyahu minkum qofkii idinka mid aha ninkaas uweysa la kulmaayo falyastakfir lakum ha idiin duceeya la dembi dhaaf idiin weydiiyo. cumar keliya marka ma aanu ahayne qofkii la kulmoo dhan buu yidhi. riwaaya sidaasay dhehaysa wa fii riwaayatin lahu riwaaya kaloo saddexaad isna uu warinaya muslimna can cumara radi allahu canhu qaal inii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyh wali wslam yaquul ina khayra الtaabiciin rajulun yuqaalu lahu uways. taabiciinta waxaa la yidhaahaa jiilkii ku soo xigay saxaabada kusoo xigay ee saxaabada la kulmay ayaa la yidhaahaa. marka wuxuu leeyay taabiciinta waxaa ugu khayr badan nin la yidhaaho uways. ninka ugu khayr badan saxaabadii ridwaan ullahi calayhim iyaga waa la yaqaanaa si u kala fadli badnaayeen iyo waa la yaqaanaayo alcashara almubashariin uma albasriyiin ila akhirihi uma alkhulafaa alraashidiin haddana abubakr iyo cumar sidayna kala hayn waa la yaqaanaa. laakiin taabiciinta iyaga lama yaqaano khilaafna waa ku jirjiraayo qolaba nin kii ay aragtay beledkeeda deganaa ayay u qaadatay inuu khayru taabiciin uu yahay. ahlulbasra maalan waxay fadili jireen alxasan albasri, ahlmadiina saciid ibn اlmusayib wahaakada muxua markaa. laakiin xadiidkan kadaa arrintaas yaa isagu kala faslinayo o xukumayo marka wuxuu leeyahay taabiciinta waxa ugu khayr badan nin la yidhaaho uways. walahu waalida hooyuu leeyahay hooyadiisaa nool kaana bihi bayaadun cadaan buu lahaa baras buu lahaa famuruuhu falyastakfir lakum amra oo haddood aragtaan dembi dhaaf allah idinka dalbo. qowluhu ghabraa الnaas bifatxi اlgayni اlmucjama waiskaani اlbaa'i bilmaddi ghabraa la yidhaah wahum fuqaraa'uhum wasacaalikuhum. qabraa kuwa boodhleyda ah weeyaane dhulka yaalaba laga wada. waman laa yucrafu caynuhum min akhlaaqihim iyo dadka aan la aqoonin ee dadka isku dhex jiraa kaasaa la yidhaahaa. walamdaadu jamcu madad wahum alacwaanu wاnnaasiruun waa dadka taakulada ee dadkii hore lagu taakulaynayo weeyaan aladiina kaanuu yumiduuna almuslimiina fi ljihaad taakulayn jiray ee ka daba tegi jiray dadka jihaadka aaday. وعn cمر بن الخطاaب رضي الله عنه qال اsتأdنtu النبي صلى الله عليه وaلي وسلم في الcمرة nebiga صلى الله عليه وسلم inaan cمraysto waa idan dalbay faadina lii waa idnay
وqاala wuxuuna yidhi laa تnsanaa yaa أخya min duعاa'ك hanaga ilaawen walaalow ducadaada noo soo ducee faqaala cumar baa wuxuu yidhi kalimatan eray buu yidhi nebigu salى الlaه عalيه wali wasalam maa yasurunii aanu iga farxiyeen ana lii biha bedelkeeda inaan lahaan lahaa addunyada oo dhan iyo akhidaas walaalka kale walaalkayowdaagu yidhi addunyadao dhan maana ku doorsadeen wa fii riwaayatin qaala aa kalena wuxuu yidhi ashriknaa yaa ukhaya fii ducaa'ik naga qaybgeli oo nagu soo dar walaalow ducadaada riwaayana saasay leedahay riwaana ana ilaawin bay tiri ayay leedahay ayuu yidhi leedahay xadiidun صaxiix saasuu ay leeyahay imaamu nawowi radiallahu canhu waa xadiid saxiixa buu leeyahay rawaahu abu daawuud wالtirmidiy waqaala xadiidun xasanu صaxiix wa abu daawuud iyo tirmidiga wariyo tirmidi weli wuxuu ku daray inuu yihi waa xadiidun xasanu صaxiix mana aha xadiidku xasan iyo صaxiix toona ma aha oo waa daciif xadiidkan kadu waxaa daciifiyey الsheekh alalbani wuxuu ku daciifiyey daciif الjaamiع الصغيr wاlmishkaa wa mxu aha alaxaadiid almukhtaara iyadana waa ku daciifiyey iyo keyrkeedba waa ku daciifiyey waxaana sababku ku daciifayna waxa weeyaan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaha caasim ibn cubaydillah ibn caasim ibn cumar yani wiil awow u yahay cumar yaa ragga xadiidkan kale sanadkiisa ku jira wiilkaasuna daciif buu ahaa xadiidkanu marka daciif weeyaan waana mar labaad buu xadiidkan u iman doonaa 714 yuu ku imaan doonaa marka kulley xadiidku wuxuu faa'iideyn lahaa in laga ducaysto qofka aadaya meel khayr aadaya xaj iyo cumro iyo jihaad iyo muxuu ahaye cilmi aqrisad iyo qofka sidaas oo kale ah in la yidhaah ii duco laga ducaysou faa'iideynayaa laakiin dadka saalixiinta in laga ducaysto xadiidkii horaa bayna kaga filan oo iyo xadiid kale oo kankada waxba uma baahniy kol haduu daciif yahay isaga waxba ka qaadan mayno can ibni cumar radi allahu canhuma qaala kana nabiyu sala allahu alayh wali wasalam yazuuru qubaa waa tarjamadii waxaa ku jirtay amaakinta faadilada ah ee yani sharciga ay ku sugan tahay fadligeedu in la booqdo la ziyaarto oo lagu soo cibaadaysto marka tii buu ka hadlaya wuxuu le nabigu sala allahu alayh wali wasalam masjidka qubaa ayuu tegi jiray isbuuc kastaba maalinta sabtidaa buu tegi jiray raakiban wa maashiya isaga oo fuushanaya isagoo lugaynayaba waa tegi jiro fa yusallii fiihi ragcatayni 2 ragcadood buu ku tukan jiray muttafaqun calayhi wuxuuna sheegay salaada lagu tukadaayo inay cumro u dhiganto ayuu sheegay marka qofkii isagu marka masaajida loo safro ma aha saddexda masjida loo safro kuma jiro laakiin qofkii madiina jooga ayaa waxa u wanaagsan aanu ilaawin masjidka inuu tago oo kusoo 2 ragcadood iyo kusoo tukado siduu rasuulku sala allahu alay slam uu yeeli jiray wa fii riwaayatin kana nabiyu sala lla alay slm ya'tii masjida qubaa quba masjidkeeda ayuu tegi jiray kulla sabtin sabti kasta sabtidaa marka la sheegayo waa sabtidee ma waxa weeye maalinta sabtida ah mise usbuuci oo dhan baa laga wadaa usbuuca naftiisa si anaga jumca un idhaahno jumca 7 beri jumco waan idhaahna maalinta jumcadana jumco waa la yidhaha saas oo kale marka sabti waa la yidhaahaa usbuuca hal maalin oo kamidana waa la yidhaahaa marka midkee laga wadaa abu sham almaqdisi raximah llah oo imaamu nawowi kada radi allahu canhuma sheekiisii kitaabkiisa muxuu ahayey uu ku magacaabo albaaciث اlxafiif oo bidacda iyo uu kula dagaalamay buu wuxuu ku sheegay in sabtida laga wado usbuuci oo wuxuu usoo deliishanaya xadiidkii anas ee roobdoontii nebiga sala allahu alay slam markuu ka hadlaayey ee roobkii uu kala gu'i waayey jumcadii ilaa jumcadii wuxuu anas yidhi laa wallahi ma ra'ayna ashamsa sabtan in usbuucan 7 baanaan qoraxda arag marka halkuu ka dhihi lahaa usbuucan iyo wuxuu yihi sabti marka abu sham almaqdisi isagu wuxuu dhaleecaynayaa maalinta sabtida ah gaar ahaan dadka masjidka u tago oo wuxuu leeyahay sabtida waxaa laga wadaa usbuuci baa laga wadaa usbuuciiba in hal marna tago uun maalin ay ka noqotoba weeyaane in sabtida un la fiirsada ma aha
raakiban wamaashiyan ayuu tegi jiray wa kaana ibnu cumara radia allahu canhuma yafcaluhu ibnu cumarkan xadiidka warinayaana oo lagu yaqaano inuu aad iyo aada ugu adkaa ku dayashada nebiga sala allahu alay wasalam iyo raacitaankiisa sidaasoo kale isaguna yeeli jiro markuu madiino joogo waa tegi jiray masjida qubaa buu tegi jiray waa ku tukan jiray baabu fadli اlxubi fi اllahi wاlxahi calayhi waiclaami الrajuli man yuxibuhu anahu yuxibuhu wamaada yaqulu lahu idaa aclamahu wuxuu ku saabsan yahay afar shay buu fasalkan ku saabsan yahayoo dar alla oo la isu jeclaadaayo fadliga ay leedahay iyo arrintaas sida la isugu guubaabiye ee in qofka uu kasbado oo dadka wan wanaagsan uu dar alla u jeclaado iyo qofkii jacaylkiisu qalbigiisa uu kusoo dhaco dar alla u jeclaado inuu u sheego oon ka qaraninin uu yidhaha nin iyo dar allaan kuu jeclahay iyo kaas dar alla loo jeclaaday marka sidaa loo sheego wuxuu isna ku jawaabayo qaala allahu tacaala muxamedun rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaau calى اlkufaari raxmaau baynahum saxaabada ridwaan ullahi calayhim waa aayaddaantada ugu dambaysa suurat lfatx ugu dambaysa yuu aad iyo aad alla ugu ammaanay ridwaan ullahi calayhim siday mu'miniinta u jecel yihiin ugu naxariistaanay siday gaalada ugu aad adag yihiin iyo uu aada ugu ammaanay waa ka abu bakr bn abi daawuud radi allahu canhuma qasiidatiisa ohoo caqaa'id ahlusunna uu kaga hadlay ayuu wuxuu yihi wa fi lfatxi aayun lisaxaabati tamdaxu suurat lfatxi waxaa ku jira aayado oo saxaabada si aada u ammaanaysa tanaa marka ka mid a muxamedun rasuulu llah muxamed waa rasuulkii allah waaladiina macahu ragga la jiraana ashidaau cala alkufaaru waa kuwa gaalada ku ad adag ruxamaau baynahum dhexdoodana isu naxariista oo iyagu isjecel oo istaakuleeyo oo muxuu aha isgacan qabta weeyaan marka labada arrimood ba alla ku ammaanay gaaladana inay u daran yihiin oo dar alle ay u necab yihiin oo la jihaadaan ay ku kakan yihiin dagaalkooda ayna ka fadhiisanin iyaguna dhexdooda istahgeliyaan oo isxurmeeyaan oo isu naxariistaan oo isjecel yihiin ilaa akhiri suura marka aayadda dhamaystir buu leeyahy cibaadadooda iyo markaas oo dhan alla sii ammaanay oo taraahum rukcan sujadan yabtaguuna fadlan min allahi waridwaana ila akhiri aayad wa qaala tacaala allana wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wاladiina tabawa'u daara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayuhiruuna calaa anfusihim marka aayaddantaduna waxay ka mid ahayd aayado alla uu kaga hadlaayey dadka fay-a mutay wamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi lqurba saasay usoo tirtirinaysay oo fay-ana waxaa la yidhaahaa maalka gaalada dagaal la-aan lagaga qabsaday siduu aayadda ka horraysayba alla uu ku sheegay oo wamaa afaa'a allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab walakin allaha yusalitu rasulahu calaa man yashaa alla u leeyay marka kolkuu tirtirinayey fay-a dadka mutay markuu tirinayay ayuu wuxuu ku soo daray ugu dambaysiiyey weliba ansaartii buu alla subxaanahu wa tacaala marka si gaara u ammaanay oo say usoo dhoweeyeen walaalahoodii muhaajiriinta ahaa ee qalbigood iyo maalkood iyo guryahoodaba ugu fureen ee ay u jeclaayeen ee wixii ay siiyaan ama iyaga gaar loo siiyo nebigu sala allau alay slam iyaga gaar uu siiyo ayna qalbigoodu inna wax xumaana aanu u gelaynin ayuu ku ammaanay ridwaan ullahi calayhim markaasuu alla wuxuu yidhi waaladiina iyo kuwii baale iyaguna fay-a wax ku leh tabawa-uu degay addaara waaliimaan daarta dega ee madiina sii deganaa waaliimaana yacni waalifu liimaan iimaankana galay min qablihim iyagu hortood yuxibuuna iyaga oo jecel man haajara ilayhim dadka u soo hijrooda jecel walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu aan laabtoodana iyo qalbigoodana wax dhibaato iyo aan ku arkaynin wixii la siiyo yacni maalkooda
waxay walaalahooda ka siinayaan iyo waxay walaalahooda ay helayaane la siiyo iyo inna wax muxuu ahay dhibaataysiyo waxba toona aan ka helaynin aada ugu qalbi furan saasuu marka ugu ammaanay alla subxaanahu wa tacaala وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال ثلاث من kuna فيihi saddex walxadood qofka ay ku sugan yihiin wajada bihina wuxuu iyaga sababtooda ku helaa xalaawat aliimaani iimaanka macaankiisa iimaanka macaankiisii buu dhadhansadaa qofka ku sifooba saddexda walxadood oo soo socda marka iimaanku wuxuu leeyahay xalaawle macaan iyo dhadhan gaara buu leeyahay iyo farxad gaara buu leeyahay oo xadiidkii hiraqli miduu ku sheegay bashaashat اliimaan yuu leeyahay waxa weeyaan marka saddexdaasuna an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahumaa waa inay ahaadaan allihi rasuulkiisu kuwa uu ka jecel yahay wax kastoo ka soo harayba naftiisa iyo maalkiisa iyo ahalkiisa iyo wax walbaba uu ka jecel yahay oo alle iyo rasuulkiisa wixii raalli gelinaya iyo amarkooda fulintiisa wax waloo dhanbaba ka rajaxaya wa an yuxiba almar'a waa inuu qofka jeclaado laa yuxibuhu isagoon u jeclaanaynin ilaa lilahi dar alla mooyaane qof saalix oo wanaagsan oo ku wanaagsan diinta alle ku wanaagsan buu arkayaa markaasuu iska jeclaanaya isaga oo wax kale oo qaraabanimo iyo xidhiir kale iyo saaxiibtinimo hore iyo isku belednimo iyo wax uu u taray oo hore iyo inna aanay jirin unbuu kolkuu arko qofkaas wanaagiisa iyo saalixnimadiisa iyo diinta alle siduu ku yahay iska jeclaanaya kolka taasuna waxay tusinaysaa inuu qofkaasi qof aada u iimaan weyn uu yahay oo markuu jeclaado qofkii iimaankaas uu ku arkay wa an yakraha iyo inuu naco waa tii saddexaade an yacuuda fi lkufri inuu gaalnimo ku noqdo bacda id anqadahu allahu minhu intuu alle ka soo badbaadiyey dabadeed kamaa yakrahu siduu u necab yahay an yuqdafa fi nnaar in dab lagu tuuro isaga oo nool in dab lagu tuuro siduu u necab yahay oo kale waa inuu gaalnimada u necbaado saddexdaas qofka laga helaayo waa qof mu'minahoo iimaanku qalbigiisa uu si fiican u galay oo iimaankii dhadhansaday muttafaqun calayh riwaayo kale waxay dhahaysaa man axaba fi اllahi waabgada fi اllah waacطىa lilahi wamanaca lilahi faqad istakmala اliimaan xadiid kale oo abu umaama albahili uu warinaayo oo abu daawuud oo diya almaqdisi ay wariyeen oo صaxiixa waa sheikh اlalbani saxiix aljaamic صaغيir iyo silsilaة اlaxaadiid الصaxiixa intaba uu ku saxiix yeelaba isna sidaa leeyahay qofkii dar alla wuxuu jeclaada oo dar alla wuxuu naca oo dar alle wax u bixiya oo dar alle wax u ceshada qofku yani wax ka ceshanayana dar alle iyo uga ceshanaya inuu dar alle u necab yahay uga ceshada aan bakilnimi uga ceshana qofku wax siinaya dar alle un u siiya qofkaasu iimaankii waa kaamishaday afar buu marka kanu ka dhigay kii horena wuxuu ka dhigtay muxuu ahay saddex buu kii hore ka dhigtay ayb afartantada dambe hal baa kaga jira afartantada dambe saddexdii hore hal baa kaga jira marka kolkii laisku wada dardaro lix bay isla noqonayaan aliya rasuulkiisa wax walbaba ka jeclaado qofka oo dar alla uu jeclaado isagoo wax kale uu jeclaanaya aanu jirin isaga oo qofkii xun dar alla u naca hataa hadduu yahay qariibkiisa uu yahay iyo saaxiibkiisa hadduu yahay isaga oo gaalnimada u necab in dab lagu rido siduu u necab yahay isagoo wuxuu bixinaya dar alle unu bixiya isagoo qofku wax ka ceshanaya dar alle uga ceshada lixdaa shay qofkii isku darsada waxa weye ama afar ka mida hela ama saddex ka mida hela waxa weeyaan waa qof iimaankii kaamil iimaankiisu uu yahay oo iimaanka macaankiisa uu u dhadhamay weeyaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله toddoba alla wuxuu hariyaa harkiisuu hariyaa maalinta qiyaamaha ah ee harkiisa mooya har kale aanu jirin oo qoraxdu madaxa dushiisa imaanayso oo dhididka dadka ka baxayo muxuu ahayey uu xakamo ku noqonayo afka u galaayo ee dhulkana 7 diraac
uu hoos u galaayo oo bad oo kale sidii dadku iyagoo ku dhex jira ay noqonayaan dhidid ka baxay un maalintaas harka alla ayuu alla subxaanahu wa tacaala 7 nooc oo dadka ka mida uu hariyaa oo dhibaatada iyagu ma arkayaan har qabow iyo raaxa iskaga jira harkan kada la sheegayaa marka muxuu yahay xadiid kale oo salmaan uu warinayo oo muxuu ahay baa isagu caddeeyey oo in loola jeedo harkaas waxaa loola jeedaa uu yahay harka carshiga marka har u alla uu leeyaho sifaadka alla ka mida ma ay ahe waa har alla uu abuuray oo makhluuqaadkiisa ka mid oo harka carshiga awey taasuna oo kalena marka ta'wiil lama dhahaye waa bayaanu sunna lisunna sunnada iyadaa isfasiraysa ayb waa kuwa 7daasuna imaamun caadil waa qof madaxahoo xaqaani ahoo caadiloo xaqa wax ku xukuma ee xaq kalena de marka ma uu jiro ilaa kitaabka iyo sunnada mooye kitaabka iyo sunnada wixii khilaafaa walow dadku ay cadaalo ku sheegayaan oo dowlo walba wasaaratulcadli waxa la yidhaahay ay samaysatee qaanuunkeeda kuwa wax ku xukumaa haddana wixii sharciga alla khilaafaa cadli ma aha washaabun nasha'a fii cibaadati اllahi caza wajal iyo nin dhalinyaro ahoo ku koray oo ku barbaaray oo ku abaabay cibaadada rabbi oo aan macsi iyo cibaado ka tagid iyo waxba toona aan aqoonin oo halkay ragga aynigiisa iyo waxyaalaha ay sameeyaan aan samaynin warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajid nin oo qalbigiisu masaajidda uu ku xidhan yahay oo hadduu ka maqan yahay hadduu jooga uu ku cibaadaysanayaba hagaajintooda iyo nalalkooda iyo biyahooda iyo masquulahooda iyo ku cibaadaysigooda iyo cashirada sooda dhegaysigooda iyo masaajiddaas uun ku xidhanoo masjid hebel khudbada muxuu hebel baa ka jeedin doona muxaadara sidaasaa ka bixi doonta hebel baa muxuu ahay darsi hebel darsi sidaasa baa ka socda wax sidaas uun ee shareemo iyo waxyaalaha ay ragga aynigiisu ay isku shuqliyaan musalsalaadka iyo waxyaalaha ay ka daba dhacaan isagu intuu ka leexday qalbigiisu masaajida ku xidhay riwaaya waxay dhahaysaa xataa yacuuda ilayha inaa kusoo noqdaan kolku ka maqan yahay kol ku tahay ee ama gurigiisa jiro ama shaqadiisa jiro kole ku tahay qalbigiisa masjidkiiba ku hayaa warajulaani iyo 2 nin oo taxaabaa fi llaahi dar alla isu jeclaaday ijtamacaa calayhi ku wada kulma oo kolkay wada joogaan jacaylkii dar alla ahaa ku wada jira watafaraqa calayhi kuna kala maqan oo kolkay kala maqan yihiin meel ay kala aadaan kolay ku tahay sidii isu sii jecel oo isu xiriirinayo oo warqadaha iyo telefoonada iyo isu soo dirayaan iyo hadiyooyinka iyo aan kala goosanaynin aan islaaweynin warajulun iyo nin oo dacathu imra'atun ay dalbatay haweeney daatu xusnin wa jamaal oo leh qurux leh xusniga iyo jamaalku isku mid weeyaan riwaayo kalena waxay dhahdaa daatu mansibin wa jamaal darajo iyo maxaa ku yaal adiga daatu xusnin wa jamaal xusniga iyo jamaalku isku mid weya marka riwaaya waxay dhahaysaa daatu mansibin wa jamaal nusakhdii marka saasay isu khilaaftay midda leh taasaana mashhuurah oo saxiix albukhaari iyo ay dhigayaan middaas weeyaan daatu mansibin wa jamaal marka darajo iyo sharaf iyo qurux leh marka daatu mansibin wa jamaal kolkuu leeyahay muxuu taa ugu sii sifaynayaa wuxuu ugu sii sifaynayaa naagtaasu hadday tahay mid fool xun ama mid liidato oo xagga muxua darajadeeda ijtimaaciya iyo dhalashadeeda iyo waxyaalahaas iyo dadka la liida ah waxaa suurowda kaasu inuu iska weynaysiin iyadan uu iska weynaysiinayo uu u diidayo alla kacabsi aanu u diiday laakiin kol hadday qofkaasu wax lagu diido xagga adduunya ayna lahayn oo quraxina ayna u dhimanayn darajo iyo mansib iyo xag dhalasho iyo wixii laga fiiriyaana ayna u dhimanayn oo maca daalika ku gacan sayday qofkaas waxay tusinaysaa inuu iimaankiisu weyn yahay oo wuxuu noqonayaa sidii muxuu ahaayey yuusuf calayhi الsalaatu wasalaam haweenaydii boqorku markay dalbatay ee guryihii usoo xidhatay tii uu diidi jiray weeyaan
faqaala oo yidhi markaas inii akhaafu allah anu allaan ka baqayaa yidhi warajulun iyo nin waa kii toddobaad ee ugu dambeeyeye tasadaqa bisadaqatin sadaqa baxsaday fa akhfaahaa oo qariyey xataa laa taclama ilaa ayna kaba ogayn shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisu bixinayso aada u qariyey kol hadduu aada u qarinayana macnaheedu waxaa weeyaan inaan ina sumca iyo ruyi iyo halkaa laga sheegay halku amaaniya ayna ku jirin gacmaha iyo lugaha iyo cilmi gaara iyagu ma laho gacantii maxaa qalbiga iyo waxyaalahaasa wax lagu gartaa mooyaane gacantii wax gaara si gaara wax u garamaysa sidee marka loogu nisbaynayaa aqoon la-aanta gacanta bidixdii ma garanayso gacanta midigtii waxay bixinayso waxa weeyaan dhowr siyood baa lagu fasiro midig waxa weeyaan qofka bidixda ka fadhiyaayo wuxuu midigta ku bixinayo ma garanayo taas waa la yidhaahaa midda kale waxa weeyaan waa mubaalaqa oo aad baa yani qarinta uu qariyaba aad loogu xeeldheeraanayaayo kolkaasaa waxaa laga dhigayaa haddii ay dareen gaara lahaan lahayd oo qof waxgarad ay ahaan lahayd gacantiisa bidixdii ma ayna dareenteen siduu uga qarinayo khalqigaa looga qarinayo gacanta bidixdii ma ayna dareenteen warajulun kaas kii lixaad buu ahaa warajulun iyo ninka toddobaad waa kane dakara allaha khaaliyan alla soo hadal qaaday oo alla xusuustay isagoo keligiisa oo alla subxaanahu watacaala sifaadkiisa iyo waxyaalahaasoo qalbigiisa ay ku soo dhaceen fafaadat caynaahu oo labadiisii dhood ay ilmeeyeen muttafaqun caleyh kana sidii oo kale waxaa la yidhi khaaliyan isagoo keligiisa leanna kolku isagoo keligiisa oo cidlo joogo dadna aanu la joogin kolka uu ooyayo oo cabsi alle uu la ooyayo ama xiise iyo jacayl alle uu u qabo uu la ooyayo waxaa macnaheedu waxaa weeyaan inuu qofkaasu qof mukhlis ah uu yahay oo alle jacaylkiisa iyo alle kacabsidiisu ay ka dhab tahay haddii uu dadka dhexdiisa ku ooyo waxaa suurowda inay noqonaysa sababkuu la ooyayo inuu dadkaas isku tusaayo xadiidkuna waa muttafaq calayhi wuxuuna ku imaan doonaa laba meelood oo kale 449 iyo 659 buu kusoo noqon doonaa xadiidkan waxaa la mida xadiid kale oo isagoo xadiid qudsi ah oo alla subxaanahu watacaala uu dhahayo wajabat maxabbatii lilmutaxaabiina fiya jacaylkaygaa u waajibay oo waan jeclaanayaa dadka darta isu jecel dadka darta isu jeclaada jacaylkaygaa u waajibay udilluhum fii dilli اlcarsh yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha harka carshiga ayaa harinaya xadiidkan kalena waxaa wariyey ibn abi dunya في kitaaب الإخوان عن عباadة uu ka wariye waana xadيiث صحيixa oo صحيح الجامع الصغير شheekh الألباني uu ku صحيixiyey وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة alla sareeye maalinta قyaamaha wuxuu dhihi doonaa أين المتحاaبوna بجلالي away kuwii isu jeclaa aniga cadamadeeda iyo weynankeeda daraad isu jeclaa xaggey jiraan kuwii aniga darta isu jeclaan jiray awel alyawma udilluhum fii dilli maantaan hadhaynayaa harkayga yowma laa dilla ilaa dilli maalinta aanay jirin harkayga mooyaane har kale aanu jirin harkayga hadhaynaya xadiidkii horena sidaasuu ahaayo marka isaguna wuxuu ahaa waa xaqat maxabatii lilmutaxaabiina fiya udilluhum fii dilli اlcarsh yowma alqiyaama yowma laa dilla ilaa dilli marka labada xadiis ba muxuu ahay waa xadiidkan kada iyaguna lamid yihiin oo raacsan yihiin weliba kaa hore yaa wuxuu fasirayaa dilliga waxaa loogala jeeda labada xadiid oo kale oo inuu yahay dilliga carshiga rawahu muslim وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده
laa tadkulu ljanna janna ma gelaysaan xataa tu'minuu ilaa aad mu'miniin noqotaan ilaa aad mu'miniin noqotaan janna ma gelaysaan walaa tu'minuu mu'miniinna ma noqonaysaan xataa taxaabuu ilaad isjeclaataan awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxababtum oo miyaanan idin tusinaynin wuxuu haddaad samaysaan aad isku jeclaanaysaan wax sabab oo idin kasba jacaylka idin kasba oo haddaad samaysaan isku jeclaanaysaan ma idin sheega afshu salaama baynakum salaamta dhexdiinna fidiya oo isa salsalaama muttafaqun calayh oo qofkaasoo ag martaan iyo qofkaad la kulantaan oo dhanbaba salaamta badinteeda marka waxyaalaha la isku jeclaado ayay ka mid tahay marka xadiidkan kadow waxaan ka fahmaynaa qiimaha weyn ee ay ka joogto isjacaylka muslimiintu dar alla isu jeclaadaano ay ka joogto siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu faray sida marka waxaan ujeedaa iimaanku iyada uu ugu xidhan yahay iimaankii janno galidda uu ku xidhnaayo isjacayl buu ku xidhan yahay marka janno galiddii iimaan bay ku xidhan tahay iimaankiina wuxuu ku xidhan yahay xaqiiqadiisii iyo rumowgiisii waxuu ku xidhan yahay iyo weynankiisii iyo xooggiisii isjacayl kolkaasuu nebigu haddana sal lla ly slm wuxuu ku googaabiyey ummaddiisa sababkii isjacaylka u soo jiidi lahaa sida xadiid kalena uu u xaaraameeyey oo u nahiyey waxyaalaha isnacaybka keena waxyaalaha in laysu qalbi xumaada keeno oo dhan waa uu ka nahiyey nebigu sala allahu alayh waali wasalam oo ay ka mid tahay khidba cala alkhidba iyo beyc cala albeyc iyo shiraac cala shiraac iyo waxyaalahaas oo dhan gabadh nin kale u doonan oo laga kor doono iyo shay qof u baayacan oo laga kor baayaca iyo waxyaalahaas oo dhan waxay keenaysaa waxyaalaha colaadda keenaya isu qalbi xumaanta keenaya marka waa xaraameeyey sala allahu alayh waali wasalam laba gabdhoodoo walaalahooda isla guursaday iyo iyagana waa isku xanaaqayaan oo isku maseyrayaan oo isgoynayaan waxyaalahaas oo dhan marka waxayna tusinayaan in dar alla la isu jeclaadaayo inay aad iyo aad qiimo weyn ugu leedahay sharciga alle subxaanahu wa tacaala isnacaybka iyo weji kala dadabka iyo waxyaalahaasna ay leedahay ay xun tahay oo sharcigu u necb yahay وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة أن رجuلا زاara أخا lahu في qaرية أخرى walaalkiisa buu oo tuulo kala jooga buu ziyaartay nin faأrsd allahu lahu alla wuxuu u dhigay uu usii joojiyey calىa madrajatihi jidkiisa malakan wadakara الxadiiث xadiidkii buuna sheegay إilىa qowlihi إن allaha qad أxabaka kama أxbabta lahu alla wuu ku jeclaaday waxaan alla igu soo kaa diray inaan kuu sheego inuu alla ku jeclaaday sidaad isagana u jeclaatay kama axbabtahu fiihi yani fi llah rawaahu muslim waqad sabaqa fi lbaabi qablahu baabkii baabkan ku horreeyay baanu kusoo horumaray raqam 361 360 lambarkiisa buu kusoo horumaray وعن البراء بن عازب رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل أنه qاala في الأنصاar أنصاar bu wuxuu ku yihi نبgu صلى اه عليه وسلم laa يحبهم إلا مؤمن وlaa يبغضهم إلا منaaفق مؤmin mooyaane qof kale ma jeclaado qofkii ansaarta jeclaadaayo waa qof muؤmin ah oo iimaanku qalbigiisa ku weyn yahay oo sababku u jeclaanayaayo waxa weeyaan dowrkii weynaa ay ka soo qaateen taageerada diinta iyo gaalada jihaadkeedii iyo rasuulka sal ly slm iyo muhaajiriintii soo dhaweyntoodii iyo ayuu u jecel yahay marka hor hadduu sidaa u jecel yahay waa inuu diintii jecel yahay oo mu'min uu yahay diintii si fiican u rumaysan walaa yubغiduhum ilaa munaafiq munaafiq mooya qof kalena ma naco qofka naca ansaartaa naca ridwan ullahi calayhim iyaguna cagsi buu yahay oo wuxuu u necab yahay diintuu necab yahay oo nimankii jinni ee diintantada muxuahaye nagu soo koriyey ee ninkii tolkiiba ay soo eriyeen iyagu soo dhoweeyey waxaasuu marka leeyahay qalbigiisa ku jira kuwa waxaa la mida ansaar keliya kuwa necab buu nebigu sala lla alay sl halkankada ka hadlayay ansaar iyo muhaajiriin ba saxaabadii oo dhan kuwa isla necab maxaan u malaynaynaa ee nacladaya iyagay nacladay ku taallay saxaabada alla nacladu waa ka kordhiyey
iyo kuwa shiicadii waxyaalaha isku sheegaa shaki waxaan lahay inay munaafiqiin ay yihiin. man axabahum axabahu allah, haddii qofkii iyaga jeclaada allah jeclaanaya. waman abgadahum abgadahu allah, qofkii iyaga nacana alla waa nacaya. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال سمعت رsuuل الlahi صلى اه عليه وسلم يقول qال الله عزa وجل allah wuxuu yidhi المتxaabuuna في جلاaلي kuwa aniga cadamadaydii iyo darta isu jecel lahum manaabir minbaray leeyihiin maalinta qiyaamaha min nuurin oo nuur ah, minbara nuur ah oo aan xataa dahab iyo fid iyo luul iyo waxaas aan ka samaysnayn, waxay khashab iyo beri iyo yihiin iskaba dhaafe minbara nuur ah bay ku taagan yihiin oo loo dhigayaa yaqbituhum iyagu oy kamanayaan annabiyuun washuhadaa, nebiyaalka iyo shuhadadu ay kamanayaanoo allow yaa nimankaas fiiraya nimankaas sida alla u gala iyo leh oo sidooda oo kale inay noqdaan tamaninaya. sidaas dhan marka macnaheedu maaha iyagu inay shahaadada iyo ambiyada ka fadli badan yihiin, oo waxaa la yidhaha maziyadu tafdiil ma tusiso, laakiin maziyadaas iyaga u gaarka ah ayaa alla subxaanahu wa tacaala uu siinayaa. ambiyaduna calayhim asalaatu wasalaam marka khayrka oo dhan bay jecel yihiin, markaasay jecelaysanayaan xaaladooda, nimanka xaaladooday u bogayaan. rawaahu التirmidي وqاala xadiiث xasn صaحيiح, waana sidaa uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan. صaxaxahu alalbaniي fi صaxiix الjaamiع الصغير. وعan abi idriis alkhulaniي raximah الlahu taعaalى, magaciisuna sidaan soo marray waxaa la yidhi caaئid الlah bn cabdالlah ayaa la yidhaahay radي allahu canhu, waa taabici mkhadrm ah. qaala dakltu masjida dimashq, masjidka dimashqaad baan soo galay. faidaa fatan waxaa igu soo geliyay nin dhalinyaro ahoo baraaqu hanaayaa, oo foolal cadka cadcad oo afkiisu nadiif uu yahay oo cadayga laazima. waida annaasu maca isagoo dadka ay la fadhiyaanoo muxuu ahaayey dadku isaga ku urursan yihiin. faida اkhtalafuu fii shay-in hadday wax isku khilaafaan xagga diinta ku saabsan asnaduuhu ila isaga u tiirinayeenoo isagay dhahayeen nooga waran. wasadaruu can ra'yihi, ra'yigiisayna ka fulayeen, yani ra'yigiisay ku qanciyeen wuxuu isagu sheego. in dhalinyaro oo sidaas dadku u xurmeynayaan ayaan arkay. fasa'altu canhu, markaasaa su-aalo waxaan u arkay ninkaas dadku sidaana u xurmeynayaane sida cilmiga u weydiinayaan ee waxay isku khilaafaan ba isaga u dhiibayaane wuxuu gooyo ay ku raalli noqonayaan. faqiila markaasaa la yidhi hada mucaad bnu jabalin radia allahu canhu wa mucaad bnu jabal radia allahu canhu. falamaa kaana min algadi, markay berri ahayd maalintii sidaasaa lagu kala tegay, muuna garanaynin, kolkaasu baa loo sheegay. an hajartu soo jarmaaday, miski ku soo jarmaaday. fawajadtuhu qad sabaqanii bitahjiir, waxaan helay isaga oo jarmaadadii igaga horreeyey oo masjidkii kusii jira. wawajadtuhu yusallii, isagoo tukanaya baan la kulmay. faintadartuhu waan sugay xataa qadaa salaatahu, ilaa salaadiisii u dhammaystay. uma ji'tuhu min qibali wajhi, xagga wejigaan uga imid. intii hore uu tukanaya maanu hor fadhiisanine gadaal gadaal mise dhinac dhinac buu ka fadhiistay. fasallamtu calayhi waan salaamay. uma qultu markaasaan waxaan idhi wallahi inii la uxibuka lilah, anugu dar allaan kuu jeclahay. marka wuu u sheegay inuu jecel yahay buu u sheegay. xadiidka soo socdaana wuxuu arrintaasuu fari doonaa nebigu sal lla alay slam. marka ninka kadu sidii sunnada ahayd buu hala waafajiyo dar allaan kuu jeclahay buu ku yidhi. faqaala markaasuu mucaadine wuxuu yidhi allahi ma wallahi. qultu allahi wallahi u dhaar. faqaala allahi waa dhaar iyo istifhaam isku jira, su-aal dhaari ku jirto weeyaan. qultu allahi, laakiin ta dambe ee jawaabka isaga kuma jiro oo su-aal kuma jira oo isagu waa khabar. faأkhadanii wuxuu igu qabtay bixubwati ridaa'i, go-ayga doonyihiisii jilba xidhka, go-asaa jilbaha loogu soo xidhaa xubwo la yidhaaha. marka waa doonyeysnaa abu idriis oo mucaad baa marka maradaydii aan jilbaha kusoo qabsaday ba igu soo qabtay. fajabadanii ilayhi, xaggiisuu iisoo jiiday, waa isoo dhoweeyey. faqaala markaasuu yidhi abshir, bishaarayso. fainii samictu rasuula اllahi salى اlه alay slm, rasuulka allaan maqlay yaquul isagoo oo leh qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi wajabad maxabatii
jacaylkaygaa u waajibay lilmutaxaabiina fiya kuwa darta isu jeclaada wاlmutajaalisiina fiya kuwa daraadda isula fadhiista wاlmutazaawiriina fiya kuwa daraadda isu ziyaarta wاlmutabaadiliina fiya kuwa aniga daraadda wax isu siiya. xadiiث صaxiix rawaahu malik fi اlmuwaطأ biisnaadin صaxiix waana sidaa uu sheegay oo xadiidku صaxiix weeyaan صaxaxahu اlalbani fi صaxiix jamci الصaغيir wa fi mishkaati الmasaabix. qowluhu hajartu ay bakartu tahjiirka iyo tabkiirku marka isku mid weeyaan wa bitashdiid اljiim jiimku waa shadan yahay. wa qowluhu allahi faqultu allahi waxaa weeye alأwalu bihamzati mamduudatin lilistifhaam. midka hore allahida waa su-aal oo su-aalka haddii ay gasho shay alleh waa la madaa. wahaani ka labaad ee abu idriis jawaabkiisihina bilaa madin isagu ma madnayn isagu anwaar uu warramaya weeyaan allahi iyo allahi bay kala yihiin. وعn abi karima almiqdaad bn macdi karib radي allahu canhu can الnabiy slى اllahu عalيه wali wslam qaal إidaa axaba الrajulu akhaahu ninku markuu walaalka jeclaado dar alla u jeclaado falyuqbirhu anahu yuxibuhu ha uga waramo inuu jecel yahay ha u sheego waan ku jeclahayda sidii abu idriis alqulaani radi allahu canhu uu yeelay hadda soo maray. rawaahu abu daawuud wالtirmidiy wa qaala xadiiثun xasan waana sidaa uu sheegay xadiid xasanna waa صaxiix wa صaxaxahu اlalbaniyu fi صaxiix اjaamic الصaغيir. xadiidka waxaa kaloo isna wariyey أxmed wاlbukhaariyu fi اladab الmfrad wabnu xibaan wاlxaakim intaasba waa wariyana min riwaayati almiqdaad bni macdi karib. waxaa kaloo isna wariyey ibnu xibaan baa haddana isna wariyey can anas ka wariyey walimaamu axmed wadiya almaqdisiyu fi lmukhtaara can abi dar radi allahu canhu. xadiidkuna marka yani saasu amraya u sheego ayuu leeyahay. وعn mعaadi radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam أkhada biyadihi rasuulka allah gacantiisa qabtay wa qaala wuxuuna yidhi yaa mucaad wallahi inii la uxibuka anugu waan ku jeclahay. ninka rasuulka alla salى اllahu عalيه wasalam uu jeclaaday maxaad u malaynaysaan qiimihiisa iyo heerka uu joogo anugu waan ku jeclahay. ثuma uusiika waan kula dardaarmaya yaa mucaadow laa tadacanna ha ka tegin fii dubuuri kulli salaatin salaad walbaba aakhirkeeda gadaasheeda ha ka tegin taquulu inaad dhahdo allahuma acinnii calىa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika allow igu caawi igu kaali dikrigaaga iyo shukrigaaga iyo cibaadadaada wanaajinteeda inaad sidaa dhahda hadeni. marka nebigu sal ly slm waa uga warramay siduu dadka isagoo na uu faray buu isna yeelay oo mucaad buu u sheegay waa ku jeclahay buu ku yiri. xadiidkaasuna waxaa weeyaan buu lehy alimaamu nawowi radi allahu tacaala canhu xadiiثun صaxiix rawahu abu daawuuda wالنasaaئiyu biisnaadin صaxiix. lakin xadiidka sheekh alalbani xafidahu llah isaga wuxuu ka dhigayaa xasan buu ka dhigayaa oo fi صaxiix aljaamic الصaغيir xasan weeyaan buu yihi xadiidkuna wuxuu ku imaan doonaa mar labaad raqم 1422. wa can anas radي allahu canhu ana rajula kana cinda الnabiy salى اllahu عalيyh wali wasalam nin baa nebiga sal ly sl agtiisa joogay famara rajulu bihi nin baa soo maray faqaala markaasuu ninkii nebiga sal ه alay slam la joogay baa wuxu uhi ya rasuula allah inii la uxibu hada anuu ninkaas waan jeclahay. faqaala lahu nabiyu sal ه alay slam aaclamtahu ma ogeysiiso ma u sheegtay qaala laa qaala faaclimhu ogeysii falaxiqahu wuu haleelu ka daba tegey faqaala markaasuu yihi inii uxibuka fi اllah anuu dar allaniyaho kuu jeclahay. faqaala markaasuu wuxuu yidhi kii la jeclaaday baa yidhi axabaka aladii axbabtanii lahu ha ku jeclaado midkaad dartiisa ii jeclaatay oo alle weeyaane adigana ha ku jeclaado marka waa u duceeyey. rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix
marka xadiidkana waa sidaa uu sheegay ayuu الsheekh muqbil الwaadiعي uu u صaxiix yeelay fi صaxiix الmusnad. waxaa kaloo xadiidka wariyay cabdirazaq baa isna wariyey. marka xadiidkankadu wuxuu ka hadlayaa tarjamada alimaam nawowi tarjamadiisa meeshii ugu dambeysay baabka yani baan ka wadnaaye ee uu dhihi jiray waxa uu dhahayay qofkii loo sheego in la jecel yahay oo marka ninkankadu wuxuu dhahaya adigana allah ha ku jeclaado uu dhahayaa allah dartii ii jeclaatay ha ku jeclaado. waxaa kaloo soo marray xadiidkii mucaadna inuu ku yidhi abshir fainii samictu rasuula اllahi salى اllahu alيyه wali wslam yaqulu kada wakada. marka labada xaalaba waa la heli karaayo in labada nina saxaabigii labada ay ku kala jawaabeen midkii la doonaba waa lagu raaci karaayo haddii la doono waxaa la dhihi karaa qofkaas yidhi waan ku jeclahay waxaa la dhihi karaa abshir faina rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam qaala kada wakada ama abshir faina fulana rawaa can rasuuli اllahi sala اله alay sl annahu qaala kada wakada. haddii la doonana waxaa la dhihi karaa axabaka allahu aladii axbabtanii lahu allihii aad darti ii jeclaatay ha ku jeclaato midkii la doono lagu jawaababa waa صaxiix. baabu calaamaati xub اllahi tacaalى alcabda wاlxahi calى الtakhaluqi biha wالsacyi fi taxsiiliha. calaamada lagu garanayo inuu alla qofka jecel yahay qofkan inuu qof wanaagsan oo alla jecel yahay uu yahay calaamada lagu garanayo iyo muxuu ahay iyo gubaabada la isku gubaabiyey in jacaylka alla la kasbado oo lagu dadaalo weliba in la helo lagu dadaalo. qaala allahu tacaala qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum allah wayغfir lakum dunuubakum wallahu gafuur raxiim. waxaad dhahdaa haddaad alla jeceshihiin ani soo raaca alla idin jeclaanaya inaad idinna dembi dhaafaye. marka qofkii rasuulka sala allahu alayh waali wasalam raaca ee sunnadiisa dabaqa ee isaga ku dayda ee mahalkiisa aclaha isaga ka dhigta taa macnaheedu waxaa weeye inu alla jecel yahay inu alla jecel yahay bay calaama u tahay leanno muxuu ahayey alla jacaylkiisa wuxuu ka ratibmaa itibaacu rasuuli sala allahu alayh waali wasalam. wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinih fasawfa yaأti اllahu bqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilaة calى اlmuؤminiina acizaة calى اlkaafiriin yujaahiduuna fii sabiili اllahi walaa yakaafuuna lawmata laa'im dalika fadl اllahi yutiihi man yashaء wallahu waasicun caliim. yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniinta ahow man yartadda minkum qofkii ka ridoobay ee ka noqday idinka idin ka mida can diinihi diintiisa qofkii ka noqday ee gaalooba fasawfa yaأti اllahu hadda kadib buu alla keensan doonaa biqowmin rag buu keensan doonaa yuxibuhum uu jecel yahay wayuxibuunahu iyaguna alla jecel oo ah adilatin kuwa mutawaadiciin uwa cala almu'miniina mu'miniinta u naxariis badana u tawaducan iska weynaysiinin waa kow taas waa calaama. cizatin cala alkaafiriin gaaladana ku adag oo gaalada iska weynaysiiyo u daran waa mid labaad. labadaasiba waa labadii uu saxaabada ee rasuulkana sal lla alay slam alla kusoo ammaanay moxamedun rasuulullah aadeedii. yujaahiduuna fii sabiili اllah ku jihaada jidka alle ku jihaada oo gaalada la jihaada dar alle la jihaada. walaa yakhaafuuna lawmata laa'im aan kana baqaynin qof canaanta canaantiisa. jihaadka iyo xaqa ay sheegayaan iyo dar allah ay u sheegayaan hebel baa kugu nici iyo waa lagu canaanan iyo bulshadaad ka dhex bixi iyo waad ka takoorra waxba aanay ku jirine dad alla wuxuu sheegayo u sheega wuxuu falayo u fal. dalika fadlullah kaasuna waa deeqdi alla qofkii inta alla waafajiya deeq alla alla siiyey. yu'tiihi man yashaa qofkuu doono alla siiyaa wallahu waasicun caliim. allahuma aatina min fadlika alcadiim fainaka waasicun caliim. marka waxaa weeyaan calaamaadka lagu garto in qofka alla uu jecel yahay bay afartantaduna iyaguna ka mid yihiin. inuu mu'miniinta qofku u naxariis badan yahay u tawaaduco oona iska weynaysiinin gaalada inuu ku adag yahay inuu dar alla jihaadka u galo inaanu xaqa qofna ugu aabayeelin. afartaasuna iyaguna waxaa weeyaan waa calaamaadka alle qofkaas inuu jecel yahay lagu garto.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه آله وسلم إن الlaha تaعaaلى qاaل alla sareeye wuxuu dhahay man cاadىa lii waliya faqad aadanته bالxرب qofkii dhiba weli kay a dhiba oo dartay u dhiba waxaan ogeysiiyey dagaal baan ogeysiiyey inaan dagaal ku qaadayo ayaan ogeysiiyey oon col u ahay wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkaygu iiguma soo dhowaado bishay-in wax oo axabba ilaya xaggayga looga jecel badan yahay waan ka jeclahay mima iftaradtu wixii aan ku waajibiyey mima iftaradtu calayhi wixii aan ku waajibiyey wixii aan ku waajibiyey oo uu guto siduu iigu soo dhowaado wuxuu iigu soo dhowaado oo kale ma jiro marka gudashada la gudanayo faradka alle la gudanayo yuu alla subxaanahu wa tacaala aad iyo aada u jecel yahay oo isagaa ka fadli badan sunnada gudashadeeda wamaa zaala cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil addoonkaygu kama zuulo inuu iigu soo dhowaado sunnooyinka inuu sunnooyinka iigu soo dhowaado aanu ka zuulaynin kolkuu faradkii guto dabadeed xataa uxibahu ilaa ka jeclaa marka darajat lmaxaba darajo la yidhaaho ayaa jirta oo lagu gaadho cibaadada badinteeda kolkii faraa'idii la guto dabadeed sunnada lasii badiyo faidaa axbabtuhu markaan jeclaado kuntu samcahu aladii yasmacu bihi waxaan u noqonayaa maqalkiisii wax ku maqlaayay wa basarahu aladii yubsiru bihi araggiisii wax ku arkaya baan u ahaanaya wayadahu alatii yabdishu bihaa gacantiisii wax ku qabanayay warijlahu alatii yamshi bihaa iyo lugtiisii ku soconayay wain sa'alanii acطaytuhu haddii uu i weydiisto waan siinayaa wa in istacaadanii hadduu wax iga magan galo alla wax iga badbaadi u yidhaahna la uciidannahu waan badbaadinayaa waxaa weye rawaahu الbukhaariي wa macnaa aadantuhu aclamtuhu biأnnii muxaaribun lahu wa qowluhu istacaadanii ruwiya bilbaa'i wa ruwiya binuun istacaadanii iyo istacaada bi labadaba waa lagu wariyey xadiidkan hadda goor baa soo marra uu soo sharxay وcanhu radي allahu canhu can الnabiy sal اه alay slam qaal إidaa axaba allahu tacaala alcabda markuu alla subxaanaه wa tacaala sarreeyay addoonka uu jeclaado naadaa jibriila jibriil buu u dhawaaqaa marka alla subxaanaه wa tacaala nido wax la yidhaha buu leeyahay siduu wax munaajaa la yidhaha u leeyahay niduhuna waa codka dheer ee sare ayaa la yidhaahaa marka alla subxaanaه wa tacaala kalaamkiisu sawd iyo xuruuf buu leeyahay laakiin kuweena oo kale aan ahayn cod dheer alla waa ku dhawaaqa cod gaabanna alla waa ku dhawaaqa kayfadiisana isagaa garanaya alla subxaana wa tacala jibriil buu alla u dhawaaqayaayo wuxuu dhahayaa inii axbabtu fulana faaxibahu naada jibriil buu alla u dhawaaqaya wuxuu le in allaha tacaala yuxibu fulanan alla fulaan buu jecel yahay faaxbibhu adna jeclahu allah fayuxibuhu jibriil jibriil baa jeclaanaya fayunaadii jibriil baa ku dhawaaqaya fii ahli الsamaa khalqiga makhluuqaadka samada joogu ugu dhawaaqayaa samada ku dhawaaqayaa in allaha yuxibu fulana faaxibuuh alle hebel buu jecel yahay ee jeclaaday fayuxibu ahlu الsamaa ahlu samaha jeclaanaya ثuma yuudacu lahu اlqabuulu fi اlأrض dhulka ayaa waxaa loo dhigayaa qabuul aqbal dadka oo dhan ay iska jecel yihiin oo arrimihiisa oo dhan la fulinayo oo qofku wax ugala yimaadaaba uu ka aqbalayo oo soo dhawaynayo oo buu noqonayaa rawaahu muttafaq عalayhi wa fii riwaayaةi lmuslim qaala qaala rasul lah sl ly slm in allaha tacaala idaa axaba cabdan alla markuu qof jeclaado dacaa jibriila jibriil buu u dhawaaqa u yeedhaa faqaala wuxuu dhahayaa inii uxibu fulanan faaxbibhu hebel waan jeclahay adiguna jeclow fayuxibuhu jibriil jibriil baa jeclaanaya uma yunaadii fi الsamaa samadu ku dhawaaqaya jibriil fayaquulu wuxuu dhahayaa in allaha yuxibu fulanan faaxibuuhu alla fulaan waa jecel yahaye jeclaada buu dhahayaa jibriil ninkaas alla waa jecel yahay jeclaaduu dhahaya uma yuudac fayuxibu ahlu الsamaa khalqigaas samada joogay ee malaa'igta alle iyo ah yaa jeclaanaya uma yuudacu lahu اlqabuulu fi اlardi dhulkaa loo dejinayaa loo dhigayaa aqbalitaan dadku ay soo aqbalaano
ay jecel yihiin. وإidaa أbغضa cabdan markuu addoon nacana dacaa jibriila jibriil ba alla u dhawaaqaya fayqul wuxuu dhahayaa إنii أbغضu fulana faأbغضhu anuu hebel waa necbahaye nac fayubغضhu jibriil baa nacaya ثuma yunaadii fii ahli الsamاء ayuu ku dhex dhawaaqayaa إن allaha yubغضu fulana faأbغضuuhu hebel alla waa necab yahay naca ayuu dhahayaa fayubغضhu ahlu الsamاء ahlu samada malaa'igta iyabaa nacaya ثuma yuudacu lahu البغضاءu fi اlأrضi dhulkaa loo gelinaya nacayb khalqiga allan baa kahanaya oo necbaanaya. xadiidkan kada waxaa ka wariyey abu hurayra radي allahu canhu nin la dhihi jiray abu صaalح الsamaan ayaa ka wariyey. wuxuu qusuna lahaayo qisadiisu waxay ahayd isagu oo mawsimkii xajka la joogo oo xajkaana mawsimkiisana uu hogaaminayo ka madax yahay cumar bn cabdilcaziiz radia allahu canhu intaan weli amiiru lmu'miniina noqonin ayuu abu saalix samaan wiilkiisoo suhayl la dhihi jiray yaa wuxuu yidhi waxaa soo maray horta cumar bn cabdilcaziiz baa soo maray markaasi dadki o dhan u kaceen oo isagoo waxba laga cabsanayno askari waxba wadanin jacayl ay u qabaan iyo ixtiraam dadka u kaceen oo soo dhoweeyeen. markaasuu wuxuu yidhi suhayl baa aabihii ku yidhi aabba waxaan u malaynayaa ninkaa cumar ibn cabdilcaziiz la yidhaha inuu alla jecel yahay. markaasuu wuxuu yihi maxaad ugu malaysay? markaasuu yidhi say dadku u jecel yihiin baan arkay say dadku u jecel yihiin baan arkay oon alla jecel yahaan u malaynayaa. markaasuu aad iyo aada ugu farxay wiilkiisa fahmigiisaasoo wuxuu yidhi lilaahi abuuk. markaasuu xadiidka kada u wariyey. waa sax weeyaan sida aad fahamtayoo xadiidkan aaban ka maqlay muxuu ahayey abu hurayra aan ka maqlay oo qofkii sidaas oo dadka mu'miniinta ay jecel yihiin aad ku aragto waa qof alla jecel yahay. marka waxaa jira qofku alla necab yahayna dadku si u wada necab yahayna markuu meeshuu soo galaba wejiga looga dadbeeya loo necbaysanayo ee qofku soo agmaraaba uga sii jeedsanayo ee dadka mu'miniinta isaga necab yihiin sharkiisa iyo waxaas iyo ay u necab yihiin baad ku garanaysaa kii alla jecel yahayna say mu'miniinta u jecel yihiin ayaa lagu garanayaa. وعن cائشhaةa رadي الله عنها أن رsuل الlه صلى اه عليه وسلم bacثa رaجuلا عalىa sarية nin buu diray sariya madax uga dhigay. sariyadana guuto jihaad aadaysa baa la yidhaahaayo waxaa sariya lagu magacaabi jiray fi kutub الsيرة jeiشhka aanu rasuulku raacin salى الlaهu عليه وaلي وسلم isagu uu ka haro sariyaa la dhihi jiray. haddii uu rasuulku raacana salى الlaهu عليه وaلي وسلم waxaa la dhihi jiray غazw inta badan inkastoo ay jiraan qaar qaswo lagu magacaabo oo aan haddana aanu rasuulkana la socnay sal l slam sida qaswatu mu'ta oo kale iyo marka nebigu sala allau alay slam nin buu madax uga dhigay guuto uu diray ayuu madax uga dhigay. fa kaana yaqra'u liasxaabihi fii salaatihim salaadoodii la isagaa amiirkoodii ahay isagaa tujinaya imaamu ahaaye qur-aan buu ku aqriyi jiray salaada fayakhtimu wuxuu ku khatimi jiray suurad kasta oo aqriyaba ragcad walbaba ku aqriyaba biqul huwa allahu axad axadun mu ka dambaysiinay. falamaa rajacuu markay soo noqdeen dakaruu dalika lirasuuli llahi sal ly slm markaas arrinta u sheegay nebigu sal ly slam waxay yidhaheen ninkan hebel yahay amiirka iyaga ahaa saasuu yeeli jiray. faqaala rasul lah sal l sl saluuhu liأyi shayin yasnacu dalika waxaad weydiisaan sababku sida u yeelayey. fas'aluuhu way weydiiyeen faqaala markaasu wuxuu yidhi inahaa صifatu الraxmaan waa alla tilmaantiisii weeye suuraddan tadu suurat اlkhlaas la yidhaaho faana uxibu an aqra'a biha inaan aqriyaa baan jecla. faqaala rasuulu llahi salى اllahu alيyه wali slam markaasuu rasuulka alle wuxuu yidhi akhbiruuhu uga warrama u sheega an allaha tacaala yuxibuhu inuu allana jecel yahay. koladu isagu alla jeclaaday oo suuraddan tada alla subxaana wa tacala tawxiidkiisa gaarka ah uu aqrinteeda uu jeclaaday inuu isna alla jeclaada u sheegay muttafaqun calayh. nin kale isaguna jiri jiro madiina dhexdeeda ahaayo xaafad imaam ka ahaayo sidaasoo kale isna yeeli jiray oo suurad kasta oo ragcad ku aqriyaba wuxuu haddana ka dambaysiin jiray suurat اlikhlaas. markaasi waxay yidhi war suuraddantada haddii aad u arkaysa inayna kugu fillaynna iska daayo suurad kale ku aqri haddii kalena iyada ku dayso maxaa suurad walbaba ugu daba xidhaysa. markaasuu wuxuu yidhi anugu imaamkiinii baan ahay oo sidaasun baan idinku tujinayaa haddaad raalli ka tihiinna imaam baan idiin ahaanaya haddii kalena imaam kale samaysta waaba idinku tegayaan. marka waxayna u arkaayeen inuu yahay
ugu fadli badan yahay ninkaasu marka raalliga ku noqdeen markaasaa loo sheegay nebiga salى الlahu عalيه wali wasalam markaasuu wuxuu yihi ina kolkuu isaguna uu sheegay suuraddaas waan jeclahay nebigu ku yihi sal اه alay slam jacaylkeeda ayaa janno ku gelaysaa jacaylkeeda. baabu التaxdiiri min iidaaءi الصاalixiina والضacafati والmasaakiin digniinta la isaga digay dhibidda la dhibo dadka ahlullahiga ee saalixiinta ah iyo dadka dacafada iyo masaakiinta in la dhibo oo lagu taagsado loo awood sheegto la isaga digay. qaala allahu tacaala wاladiina yu'duuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtaanan waisman mubiina kuwa dhibaaya ragga mu'miniinta iyo haweenka mu'minaadka ah wax ay kasbadeen oo dembi ay kasbadeen oo laga gudayo qisaas iyo xuduud iyo tacziiriya laga oofinaya la-aantii faqad ixtamaluu waxay qaateen buhtaanan been abuurasho iyo wa isman mubiinan dembi waadixa ayay qaadeen kuwaas. wa qaala tacaala faama alyatiima falaa taqhar waama asaa'ila falaa tanhar iyadoon soo maray waama alaxaadiidu fakaiirat minha waxaa ka mid a xadiidu abu hurayrata radi allahu canhu fi lbaabi qabla hada ee ahaa man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb xadiidkaasaa soo gelaya oo meeshan imaanaya. wa minha xadiidu sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu asaabiqi fii baabi mulaatafati اlyatiim isaguna oo ahaa mxuu ahaa wa qowlu salى اllahu عalayh wali wasalam yaa abaa bakrin lain kunta aqdabtahum laqad aqdabta rabbaka xadiidkaasa isna soo gelaya abu bakr ow haddaad nimanka ka cadhaysay rabbigana waad ka cadhaysiisay ogow. وعn jundub bn cabdillaahi radي allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ه alay slam man صalaa salaata الصubxi fahuwa fii dimat illah qofkii salaada subax tukadaayo ammaankii alle iyo magantii alluu ku jiraaye falaa yaطlubanakum allahu min dimatihi bishay yaanu alle dimadiisa wax idinka qabsanin oo ha taabanina yani weeyaan qof alla magan u ah fainahu xaalku wuxuu yaha man yaطlubhu min dimatihi bishay qofku magantiisa wax uga qabsado yudribku alla waa gaaraya waa qabsanayaa uma yukubhu calىa wajhihi fii naari jahannam wejigiisu ugu ridaya xagga naarta ugu ridaya rawahu muslim waana soo marray raqam 232 waa ku soo marray mar kaloo saddexaadna waa imaanayaa wuxuu ku imaanayaa 1049. baabu ijrاء أxkaami الnaasi calى الظaahir wa saraa'iruhum ilى اllahi tacaalى dadka axkaamtiisa oo lagu dureersiiyo sida daahirka ay ka muuqato oo baatinkooda iyo waxa u qarsoonna rabbi loo daayo sidaa qof waliba uu muujisto oo lagula mucaamaloodo oon waxba lasii qodqodin wixii u qarsoonna rabbigiis lagu daayo. qaala allahu tacaala fain taabuu waaqaamuu salaata waaatow zakaa fakhalluu sabiilahum hadday soo noqdaan oo ay toobo keenaan dadkii gaalada ahaa awal hore lalahaa la dagaalama oo kan ku sameeyo oo kan ku sameeyo jid walba isu taago oo alle wuxuu leeyahay hadday gaalnimadii ka soo noqdaan oo shahaadateynka yani waa inay ku dhawaaqaan weya toobadaas wey oo ay salaadii hagaajiyaan oo zakadaana ay bixiyaan faraha ka qaada wax dambe hawsii raacina. وعn ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wali wslam qaal umirtu an uqaatila الnaas waxaa lay faray inaan dadka la dagaalamo xataa yashhadu an laa ilaha illa اllah wa ana muxamadan rasuulu اllah ilaa ay ka qiraan inaanu jirin kula caabudaa alle mooyaane moxamedna salى اllahu عalayh wali wasalam rasuulka alle uu yahay wayuqiimu salaa salaadana ay ka toosiyaan wayu'tu zakaa zakadana ay bixiyaan faidaa facaluu dalika hadday sidaa yeelaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa bixaqi اlislaam waa iga ilaashadeen dhiigoodii iyo maalkoodiiba ilaa islaamnimada xaqooda uun wax mooyaane yani inay galaan wax islaamnimadu ay keenayso in qofka dhiiggiisa lagu daadiyo oo lagu dilo ama hadin iyo wax laga gooyo oo dhiig laga keeno ama ay keenayso islaamnimadu in maalkiisa laga qaado oo ay ka mid tahay qisaas iyo muxuu ahaye xuduud iyo tacziir iyo waxyaala sidaas oo maalka lagu qaadayo ama nafta lagu goynayo ama xubnaha lagu dilaayo wa xisaabahum cala allahi tacaala xisaabtooduna allay la jirtaayo isagaa ku shaqa leh oo hadday arrintaas ay la yimaadeen ay munaafiqnimo iyo dhiiggiina aad ku badbaadisiin ay ka tahay rabbi baa ku shaqa leh kuma shaqa leh muttafaqun caleyh. وعn abi cabdillahi طaariq bni ashyama radia allahu canhu qaala samictu rasuula اllahi sal ه alay slam yaquul
man qaala laa ilaha ila allah wakafara bima yucbadu min duuni illah qofkii yidhaaha laa ilaha ila allahu yidhaaha man qaala laa ilaha illa allah qofkii laa ilaha illa allahu yidhaha laa ilaha illa allah macnaheeduna waxa weeye wax la caabudoon allah inima jire oo kana kufriya wixii la caabudi jiray alla aan ahayn xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah way xaaraam noqdeen maalkiisa iyo dhiiggiisuba xisaabtiisana alla ku shaqale rawahu muslim wa can abi macbad almiqdaad ibn اlaswad radia allahu canhu miqdaad ibn اlaswad waxaa weye miqdaad ibn camri weeye sida runta ah laakiin alaswadkan kada loo nisbeynayo alaswad ibn cabdiyaquus aلzuhri ninkii mushriga ahaa ee shantii mustahzi'inta nabiga sala allahu alayh waali wasalam dhibi jirtay ee allana uu yidhi ina kafiinaka almustahzi'iina aladiina yajcaluuna maca allahi ilahan aakhara fasawfa yaclamuun ayuu ka mid ahaa marka waxa loogu magac darayna waxaa weeyaan wuu soo korsaday isaguse qorayshi muuna ahayna nin wuxuu ahaa kindi oo qabiilada kinda intuu ka yimi oo dhiig uu kusoo galay ayuu xariif la noqday oo kana marka wiil ka dhigtay markaas qaala wuxuu yihi qultu lirasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka allaan ku idhi ara'ayta bal iga waran in laqiitu rajula min alkufaar haddii aan la kulmo nin oo gaalada ka mid ah faqtatalna aan dagaalanno fadaraba ixdaa yadaya bisayf labadayda gacmood midood uu seefta ku dhufto faqatacahu uu gooyo uma laada minii bishajara uu geed igaga gabado geed xagga dhanka kale uu ka maro faqaala uu yidhaaho aslamtu lilah allaan u islaamay war waan islaamay uu yidhaaho aqtulhu yaa rasuula allahi bacda an qaalaha ma dilaya yaa rasuula allah intuu hadalkaa yidhi dabadeed qaala laa taqtulhu ha dilin faqultu yaa rasuula allah qataca ixdaa yadaya labadayda gacmood midood buu gooyay uma qaala dalik hadalkaasuu ku dhawaaqay bacda an qatacaha intuu gooyo dabadeed qaala laa taqtulhu ha dilin fain qataltahu haddii aad disho fainahu bimanzilatika qabla an taqtulah isagu wuxuu joogaa darajadaadii iyo heerkii aad joogtay intii aadan dilin wa inaka bimanzilatihi adiguna meeshiisii baad joogtaa qabla an yaquula kalimatahu alatii qaal ereygaa aanu dhahay intaanu dhihin siduu ahaabaad adna tahay isaguna si adugu ahayd intaadan dilin ayuu yahay muttafaqun calayh sidaasna say ku noqonayso alimaamu nawowi radi allahu canhu isagaa fasirayo wuxuu leeya wamacnaa annahu bimanzilatika ay macsuumu dam gaal baad ku noqotay ma ahee oo muxuahay meeshiisii baad gashay gaalnimada uu ku haysna gaal buu ahaa adiguna muslim baad ahayd intii ay hadalkaa aanu dhihine aadan dilin marka kolkii aad hadalkaa intuu dhahay aada dishayna adaa gaal noqday isna muslim buu noqday sidaas ma aha marka wuxuu leeya wuxuu ka wadaa ay macsuumu dam maxkuumun biislaamihi wuxuu noqday nin dhiiggiisu uu xaaraam yahay oo islaamnimo loo xukumayo sidaas aduguna kolkii hore ahayd wa macnaa annaka bimanzilatihi ay mubaaxu dami bilqisaasi liwarahatihi waxaa tahay ku dhiiggiisa uu bannaan yahay o warahadiisu inay ka qisaastaan ay u bannaan tahay laa annahu bimanzilatihi fi lkufri inuu darajadiisi xagga gaalnimada ku yahay o gaal uu ku noqday ma uu ahaa wallahu aclam sidaasuu alimaamu nawowi radi allahu canhu uu ku fasiray xadiidkan kada marka waxaa ka muuqata wuxuu weydiinayaa miqdaad radi allahu canhu rasuulka sala allahu alayh waali wasalam waxaan weli dhicin buu leeyay haddii uu dhaco waxaas hadduu dhaco ka warran waxyaalaha sidaas oo kale iftiraadaadka ana way nacbaayeen culamaau salaf ridwaan ullahi calayhim oo ninkii ashacbi ahlu ciraaq ba aada ugu badnaayo masaa-isha sidaas intay qadaraan ayay isku dayi jireen inay jawaab u helaan markaas culamaa ulxadiid qaarkooda ciraaqiyiintii aad bay masalada u necbaayeen oo waxaa ka mid ahaa alimaam shacbi radi allahu canhu oo wuxuu ku magacaabi jiray ara'aytiyiin buu ku magacaabi jiray oo wuxuu dhihi jiray masjidkiibay inacsiiyeen nimanka ara'aytiyiintiihi oo xataa musqusha gurigay kolay ku tahay midaan ka necbahay bay ka dhigeen taasi waxa weeyaan masaa-isha baciidada ahee aan camali aan ahayn inay dhacaysaba aanay macquul ahayn ama ayna qariib ahayn ama wax qofka qabsan kara oo dhici kara taas marka iyada inuu xukunkeeda hadday ay ku qabsato inuu sii su-aalo iyado taasu dhib malo leannu waqtigaas waqti jihaad buu ahaayo gaalada dagaalkeeda ay socdaan marka inay arrintaas oo kale ay qabsato miqdaad radi allahu canhu wax dhici kartay bay ahayd sidaa daraaddeed ayuu u wareysanayaa kanna waxaa la mid a axaadiid aan hadda ka hor soo marray
oo abu dar alghifaari iyo abu muusa alashcari iyo radia allahu canhu kolkay rasuulka waraysanayeen sala allahu alay wasalam camalada ka ugu fadli badan hadba kolkuu yidhaaho kaasaa ugu fadli badan bay waxay dhahayeen bal ka warrankaa hadduu kari waayo see buu yeelayaa meelaha sidaas oo kale ah ee waxa wuquuciisu uu dhow yahay ee waxa dhici kara uu yahay qofka qabsan kara wuxuu la mid yahay sidii wax dhacay oo kale oo isaga su-aalkiisa in intaana qofka qabsanin uu cilmigiisa sii ogaado waa fiican tahay laakiin waxyaalo iftiraadaad iska baciida ah taas oo waqti lumis ah kuwaas weeye kuwa aan macnaha aan lahayn ee ay nacbaayeen su-aalka kahartu su-aalka la nacbaa ee xadiidkana a kusoo maraya wallahu aclam wa can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma qaala bacahanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama ila alxuraqati min juhayna rasuulka allah noo diray annagu oo sariyo ah qabiilada xuraqa la yidhaaha juhayna qabiilo ka mida ah fasabaxna alqowma calaa miyaahihim nimankii baan ku waabarisanno aroortii hore aan ku weeraray biyahoodii iyagoo dul degan oo xoolahoodii waraabsanaya oo balaxsi ku jira walaxiqtu ana warajulu min alansaari rajulan minhum aniga nin ansaareed ayaa gaadhnay oo intaan caydhsannay baan aan soo gaadhnay nin iyagii ka mid ahoo cararay oo hortii horena aad ragga u laayay saxaabadii aad u laayay ninkaasoo uu goostay labada nin ay goosteen inay ka qabtaan muslimiinta sharkiisa ka qabtaan ayaa caydhsadeen markay ku soo dhowaadeen falamaa gashiinaahum markaan soo kuurinay aan soo gallay yuqaali wuxuu yihi laa ilaaha illa allah fakafa canhu alansaariyu waa ka joogsaday ninkii ansaareed waa ka da'weynaa usaamo oo isagu waa ka joogsaday kolkuu ashahaatay wa tacantuhu birumxi warankaygii baan ku tumaatiyey xataa qataltu ilaa ka dilay usaama radia allahu canhu nin aad u daayar buu ahaayo ninkan kadana marka cadow u qabay oo siduu muslimiinta u galay buu arkaayey oo isma aanu hanan karin oo marka ninkii waa dilay falamaa qadimna almadiina markaan madiina nimidaan soo noqonnay balaqa dalika anabiya sala allahu alayh waali wasalam arrintaasuu rasuulka alla iyo soo gaadho waa loo sheegay kolkii loo warbixinayey faqaala lii markaasu wuxuu yihi yaa usaama aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah miyaad dishay intuu laa ilaaha ila allahu yidhi dabadeed isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baad dishay qultu yaa rasuula allahi inamaa kana mutacawidaa yaa rasuula allahi ninkaasi wuu ku gabanayay oo muxuu ahay yaan lagu dilin buu ahay ka dhab ma aanay ahayn qaala lii markaasu wuxuu yidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi aqataltahu bacdamaa qaala laa ilaaha ila allah waa su-aal isticdaam iyo la yaabid iyo canaan ma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baad dishay wuu igu celiyey famaa zaala yukariruhaa maanu ka zuulin inuu ku celceliyo xataa tamanaytu ilaa aan ka jecelaystay anii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm inaanan islaami bala ahayn maalintaa ka hor wixii aan soo qabsaday islaamnimadaan kusoo qabsaday oo dhan oo kale waxa iga hadhe maalintaas dembiga isoo gaadhay iyo canaanta isoo gaadhay ma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baad dishay buu ugu celcelinay oo wax kasta oo ugu cudurdaaraba yaa rasuula allah inahu kaana mutacawidan ya rasuula allah inahu kaana yakaafu الsilaax ya rasuula allah inahu awjaca fi lmuslimiina waqtala fulana wa fulana wa fulan inta oo dhan midna kama aqbalaynine ma isagoo laa ilaaha ila allahu yidhi baad dishay inbuu ugu celcelinayay riwaa kalena waxay tidhaahaa muxuu ahay kolkuu yidhi ya rasuula allah istakfir li wuxuu yidhi waman laka bilaa ilaha illa allahu ida jaءat ywma alqiyaama laa ilaha illa allahu xaggeed ka gelaysaa markay maalinta qiyaamaha timaado iyadoo kula dooday halkaasuu u dhaafi waayey nebigu sala allahu alayhi waali wasalam aad iyo aad buu canaantay marka halkaana waxaa ka muuqata usaama radia allahu canhu mutaawil buu ahaa yani mujtahid buu ahaaye kuma aanu dhiiranin in uu arkaayo inuu muslim yahay dilkiisa ma aanu ku dhiiranine nin uu arkaayo inuu beenaalo yahay oo yaan lagu dilin uu leeyahay oo buu marka ta'wiilkaasi ku dilay maca dalika rasuulku sala allau alay slam ma aanu u garaabin ee wuxuu rabay kolba hadduu laa ilaaha ila allahu yidhaaho sidii ninka ansaareed uu yeelay ee uu ka joogsaday in lagaga joogsadoo daahirkiisaasun laga aqbalo sirtiisa iyo qalbigiisana alla loo daayo ilaan nebigu sala alla alay slam wax badan buu ku celceliyey wa xisaabuhum cala allahi tacaala saasuu rabay nebigu sala allahu alayh waali wasalam
usaama radia allahu canhu xadiidkan kada wuxuu wariyey munaasabad buu ku wariyey oo waxay ahayd markii ay dhaceen fitantii ugu horreysay dadka muslimiinta ah dhex maray ee dagaaladii ugu horreeyey muslimiinta dhex maray ay dhacayeen ee loo baxayey dagaalkii yowmuljamal ayuu cali radia allahu canhu ka dalbaday usaame inuu gacan siiyo markaasuu usaamana u cudur daartayoo wuxuu yidhi haddii aad gelin lahayd gacantaada abeeso afkeed ama libaax afkii aad gelin lahayd waan kula gelin lahaa gacantayda laakiin nin baan beri sidaa u dilayoo saa ay u canaantay nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam oo maalintaa intii ka dambaysa qof muslima inaan xaq iyo xaqdarra midna ku dilin ayaan goostay marka calina radiallahu canhu waa u cudur daaray oo waa uu ka tegey markaas saxaabada qaarkood oo sacd ibn abi waqaas ay ka mid ahaayeen kolkii fitnadaas lagu jiray usaamay fiirsanayeenoo wuxuu dhihi jiray nin uu usaama dila oo la dagaalamo mooyaane nin kale aanu lama dagaalamayo laa aqtulu rajulan xataa yaqtulahu hada batiin ayuu dhihi jiray radia allahu canhu markaas waanada rasuulka sal ly sl iyo canaantiisaasa si aad iyo aada qalbigiisa u gashayoo markaasuu dagaal muslimiinta dhex marayaba xataa isagoo u arkaayo cali inuu xaqa ku taagan yaho laga gardaran yahay uu qof xaq ku taagan oo mu'mina taageeradiisa waxaa kala rajaxnaatay qof ashhaadanaya dilkiisa muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi aqaala laa ilaaha ila allahu waqataltah man laa ilaaha ila allahu buu yidhi hoo dishay qultu yaa rasuula allah inamaa qaalahaa khawfan min asilaax hubka kacabsi uu ka cabsanaya buu yidhi mooyaane ka dhab maahayn qaala afalaa shaqaqta can qalbihi maxaad qalbigiisa u jeexi weyday xataa taclama ilaa aad ka ogaato aqaalaha am laa inuu sidaa u yidhi ama aanu ahayn inay ka dhab tahay in kale maxaad u hubsan weyday weeyaan famaa zaala yukariruhaa xataa tamanaytu annii aslamtu yowmaidin afalaa shaqaqtu can qalbihidaa marka uu leeyahay macnahoysu ma aha sida ay kuwan hadda takfiirka iyo isku magacaaba ay u fasiranayaanoo nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu farayaa usaame wuxuu farayaa inuu imtixaano oo qofka ashahaata ilaa la imtixaano oo la ogaado in shahaadadiisaasu sax ay tahay lagama aqbalayo taas macnaheedu ma aha ee waxa weeyaan sida ay shuraaxda oo dhan ibnu xajar iyo nawowi iyo kayrkoodba ay ku fasireen waa tacjiiz iyo canaan weeyaanoo qalbigiisa haddii aad aad ogaatay waxa qalbigiisa ku jira maxaad qalbigiisa u jeexi weyda hoos ugu dhici weyda maadaa yani qalbigiisa miyaad jeexi kartaayood waxa qalbigiisa ku jira ogaan kartaa yani ma ogaan kartid wey haddii ay sidaa tahay oodan marka ogaan karinna inaad daahirka kaga gaabsato ayay ahayd waa kii nebiguna sala allahu alayh wasalam arrintaas arrin lamida uu yidhi innii lam umar an anqida can quluubihim walaa an ushaqiqa buطunahum inaan qalbigooda jeexo qalbigooda hoos u sii gala ima amrin marka usaame ma amraayo inuu isagu imtixaano oo waxa qalbigooda ku jira uu imtixaan ku soo saaro ilan isagaba lama amrin waxaan isaga la amrinna ma amraayo ummadiisa sala allahu alayhi waalihi wasalam ee waxa weeyaan Bismillah. So inshallah subscribe to my YouTube channel Hoy Somali. Subscribe, follow and share Hoy Somali on Facebook.